السلام عليكم subax wanaagsan idin lahaantiinba meel boo aad naga daawanaysaan halkan waa qaranjoog news wararkii ugu dambeeyay doorashada Jubbaland iyo xaalka sidii hore ee ka bedelan waxa saakay lagu wadaa in magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ka dhacdo doorashada la sii wada ogyahay natiijada ka soo baxayso iyo waliba cidda ku guuleysan karta doorashada aniga saakay aan ahayn mid xiisa badan dabcan iyo dagaha dadka aanan inta badan loo taageerin waxaana qof kasta uu ogyahay in doorashadaani ku soo baxayo madaxweynaha waqtigiisu idlaaday Axmed Madoobe isaga oo mar kale agaasintay doorashadaani in dabcan dhacayso uu yahay midkii ku soo bixi doono amaanka goobta doorashada ka dhacayso iyo guud ahaan magaalada Kismaayo ayaa saakii la adkeeyo waxaana magaalada la soo dhigay ciidamo aad u badan oo ka amar qaata Axmed Madoobe magaalada Kismaayo waxa saaki ka jira xaalad bandow ah oo sida hore ka duwan waxaana bandowgaasi dabcan ku soo beegmaysa xilli doorashadaasi mid awood ah uu ku doonayo Axmed Madoobe in uu ku soo baxo waxaana inta badan saaki xiran goobaha ganacsiga waxaana sidoo kale saaki aad u yar dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan dadka ku dhaqan magaaladaasi doorashada aan xiisaha lahayn ee maanta dhacayso magaalada Kismaayo waxa Axmed Madoobe kula tartamayso saddex musharax oo mid haweeney ay tahay mana ahan musharaxiin kuwa miisaan iyo saameyn badan ku leh wareegga ugu horeeyo ee doorashadaasi ayaa laga yaabaa in uu lagu kala baxo waxaana dadka siyaasadda falanqeeya aaminsan yihiin musharaxiintan la tartamayo Axmed Madoobe uu malxiis ahaan u keensaday dhinaca kale musharaxiinta mucaaradka isbedel doonka ayaa dhankoodii shaaciyay in ay maanta doorashada ay madaxweynaha ku dooranayaan ku qabanayaan magaalada Kismaayo lamana ogo doorashada sida ay u dhacayso iyo cidda ku soo baxayso beesha caalamka ayaa ka digtay in qalaaso iyo rabshado taliyaan doorashadaasi maanta ka dhacayso magaalada Kismaayo waxaana jirta cabsi laga qabo in magaalada ay isku dhacyo ka dhacaan kala soo wararkii ugu dambeeyay qaranjoog news insha Allah wararkii dambe